السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان waxaan la hadlayaa walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaan, gaar ahaan walaalaha afka Soomaaliga ku hadla. gaar ahaan arintaydan waxa ama qisadaydan ama riyadaydan waxa ku socotaa dadka heesaha dhageysta, runtii heesaha jecel. walaalayaal waxa waaye arrin baan rabaa inaan idin sheego. aniga run ahaantii waxa waaye aan ku cimro qaatay ilaahina subxaanahu wa ta'aala sabab iiga soo dhigay inaan ka soo hadeysmo. ilaahay baana mahadaas kale. arrinkaas waxa weeye riyo waaye, waxaana run ahaantii jecelahay inaan idinla wadaago. runtii arrinkaas aniga wuxuu igu dhacay ilaa 2015 ama 16 bilowgiisii ay ahayd. heesahan aad u dhageysan jiray, heesaha run ahaantii aad iyo aad runtii u jeclaa, anigoo dareemay inaan dambi ku dhex jiro. haddana run ahaantii waxa weeye waa dareemaysaan oo runtii shaydaanba waxaas ku shuqul leh iyo runtii waxay nafteenu ay raacraacayso ay jeceshahay. markaas waxaa dhacday in aan runtii heesaha layga digo. runtii waxa kale runtii aan arki jiray in layga digayo salaada haddii aan waqtigeeda dib uga yara dhaco. habeenkii markaan seexdo masas baan ku riyoon jiray. masaskaas runtii laygu leeyahay salaada weeye. masaskaas way igu wareegaalaysanayaan, yacni iguma dhagayaan, laakiin waa lay tusi jiray. intaa markaan kasoo gudbo waxaa dhacday heesihii sidii anigoo maxay tale u dhageysta ayaa dhowr jeer layga digay, ilaa iyo markii dambe si toos laygaga digay. habeenadana kamid ah baan seexday anigoo hees dhageysanaya. dabeedna waxaa dhacday waxaan arkay runtii agagaarkayga dad baa saa ugu xeerna, dad baa ila joogay. waxaan arkay wax runtii kasoo socda xagga cirka. arrinkaygana runtii waxaan uga digayaa runtii in si xun loo adeegsado hadalkaygaas. riyadaydana run ahaantii laga been sheego. run ahaantii aniga baa been ka sheegay, riyadana been ma laga sheego. sida ay tahay ayaan idinku soo gudbiyay. riyadu way fara badnay, balse laakiin intii aan ka xasuusto baan idin soo gudbiyay. kabacdi maadaama sidan waxaan idin leeyahay, maadaama hadda ay socoto runtii wax been oo la iskula wareegi la leeyahay, dhagaxba cirka ka soo socda yaa lagu darsanin. gabadh baa riyootay, kabacdina waxaa ku riyootay. arrinkaygan anigu wuxuu ahaa xilligaan idin sheegay, taariikhda xilligaas bay ahayd. wax aniga runtii waxa weeye ilaahay subxaanahu wa ta'aala igu soo hanuuninay ayay ahayd oo run ahaantii xumaanta layga digayay. ilaahay baana mahadaas kale, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. kabacdi waxaa dhacday waan seexday, waxaan arkay markaa wax cirka kasoo socdo oo argagax leh oo aan run ahaantii cidi eegi karayn. waxaas inuu dhagax ahaa inuu wax kale ahaa ma garanayo, balse laakiin waxaan xasuustaa in wax runtii aan la fiirsan karaynin inuu ahaa waan xasuustaa. kabacdi waan qayliyey waxaan dhahay waxan waa maxay waxa laygu dhahay wuxuu ku soo socdaa dadkii heesaha dhageysan jiray, muusiga dhageysan jiray oo adigu aad ka mid tahay. subxaan allah, aad baan runtii usii qayliyey. waxaan dhahay run ahaantii ilaahay yacni firsad ha lay siiyo, ilaahay firsad ha siiyo, firsad qura ha lay siiyo. waan iska daynayaa, firsad qoray siiya. kabacdi sidaas markaan ku qayliyey firsadii, runtii subaxii waan kacay oo firsad waa lay siiyey oo aniga subaxii kacay anigoo run ahaantii aan dhimanin, waxna ayna igu dhicin. sidaa darteed waan idin soo sheeko dhaafay. dhowr jeer horena layga digana way jirtay. dabeedna intan moobilkayga ka dhilid garay, laakiin aan tv-ga ka eegi jiray ilaa maayo markii dambe si toosa layga digay. markaa walaalayaal waxa weeye waxaan runtii idinka digayaa inaad ka gaadhaan go-aan. qof walba wuu isdareemaya marka uu dhageysto qof waliba uu ogyahay marka uu saa u dhameeyo cabsi ayaa gelaysa. uu dareemaya inuu dambi ku dhex jiro, uu dareemaya run ahaantii inuun waxba shaqaysanin. marka run ahaantii kalaamka ilaahay aan ku raaxaysano. raaxo waxaa inoogu filan kalaamka ilaahay. runtii qofkuna khayr hadduu sameeyo run ahaantii khayr kale ayuu u jiidayaa. runtii beentan layskula wareegayna ha layska daayo, waxbaa cirka kasoo socda. haddii 9 dhagax ay soo socoto iyo haddii wax kastaaba ay soo socdaan ayba dhici lahaydba, haye hal mar unbay naftii naga baxaysaa. inaga hal mar baynu dhimanaynaa, hal marna waan dhalanay. marka waxa weeye
beentaasna walaalayaal ha la iska daayo iminkana anigana yaa la iga been abuuran kaliya takliibka waxaan idinku soo duubay in runtii heesaha iyo muusiga aad iska daysaan. waxaan kale halkan kala hadlayaa habeenada kamid ah waan seexday aad waxaan u jeclaa maadaama la iga digay anigaba dadkii aan dhageysan jiray inaan run ahaantii yacni aan u nasteexeeyo aan idhaahdo heesaha iska dhaafa. habeenada kamid ah ayaan kaloo seexday kabacdina waxaan ku riyooday fanaanka Nimcaan Hilaac. run ahaantii haddii fariinteedana ay gaadho dhowr jeer waan isku dayay inaan run ahaantii waxawaaye aan gaadhsiiyo aan u sheego Facebook iyo magaciisa ku qoran yihiin xataa waan run ahaantii u gudbiyay laakiin ma garan karo inuu isaga yahay in kale. waxaan ku riyooday Nimcaan Hilaac oo run ahaantii xabaasha yaa laga baqin, xabaasha waa layna gelinayaa, waa tii maxay talo laynoo abuuray waana laynaga soo saarayaa. Nimcaan Hilaac oo xabaal ku jira kabacdina xabaashana wuu ku jiray uuna dul taagnaa uu ka heesayay subxaanallah. kabacdi subaxii waan raadiyay xataa anigu burcan deganahay, burcan markaa deganayn waxaan tegay Hargeysan xataa ayaga dartoodu tegay. waan garanayaa galbaha kamid ah baan runtii jeclaystay inaan runtii maadaama iyaga dartood aan u imi inaan runtii kasoo waaniyo walaalahay dhammaan inaan kasoo waaniyo arrinkaas. kabacdina waan tegay taxi baan qaatay. waan xasuustaa waxa i raacday inaan sadahu ahay, ilaahay khayr ha siiyo, wiilan habreero hay u qabo. waan tagnay markaas waxaan u tagnay meeshii yacni gurigu ay iskugu iman jireen jigjigeerinu ku yaalay baan filayaa. waan soo weyno waxaana lagu dhahay waxay ku maqan yihiin. markaas si gaara waxaan u doonayay Yurub Genyo iyo Nimcaan Hilaac waayo labadaas baa runtii markastan runtii riyadayda aan ku dhex arkay. Yurub Genyo laftigeeda waan ku dhex arkay riyada. maalin kale oo aan seexday kelmad kasta oo iga afkayga ka soo baxaysana ilaahay baan kaga cabsoonayaa waayo runtii haddaan been sheego been caadi haddaan sheego waaba la igu qabsanaya laakiin riyada xataa laftigeeda been ma laga sheego waa wax aad iyo aad u adag. kabacdina waan soo weynay waxaana lagu dhahay Yurub Genyo ma joogto, waxaa Nimcaanna wuxuu ku maqan yahay Kenya. bas sidii baan iskaga soo laabtay. markasta waan u ducayn jiray waxaana rajaynayaa insha Allah biidnillah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kasoo hanuunin doono. dhammaan run ahaantii halkan waxaan yacni fariin gaara cod dheer aan uga dirayaa dhammaan walaalahay yacni fanaaniinta. walaalayaalow anaa idin dhageysan jiray, anaa idin taageeri jiray, anaa idin jeclaa. run ahaantii waa layga kiindigay waxa runtii waxa weeye khaladana waaye dembi aad u weyna weeye. markaa walaalayaal waxaan cod dheer yacni idinku baaqayaa inaad run ahaantii ka toobad keentaan sida walaalkeen Axmed Khayr inaad run ahaantii waxa weeye aad ka toobad keentaan baan yacni idinku baaqayaa. arrinkaygan xaqiiqo waaye waana ku riyooday siday tahayna walaalayaal waan idinku soo gudbiyey. in badanna waan idin doondoonay balse laakiin maanta way ka fiirsan weyday inaan run ahaantii aan yacni video idin soo duubo. waxaan kale run ahaantii cod dheer aan u dirayaa dhammaan dhalinyarta meel kasta ay ku nool yihiin, kuwa filimaanta daawada iyo kuwa heesaha dhageysta in waqtiga laga faa'iideysto oo waqtiga khayr walaalayaal oo lagaga faa'iideysto. intaas baan run ahaantii idinkula dardaarmayaa. heesahana aynu go-aan ka gaadhno iyo wax kasta oo la mid ah heesaha, riwaayadaha, filimaanta, wax walba inaynu go-aan ka gaadhno. intii horena ilaahay subxaana wa tacaala ha inaga dembi dhaafo. ilaahay baynu baryanaa ilaahay inuu inoo dembi dhaafo. run ahaantii haddii aad dareemi lahaydeen runtii waxa weeye qiimaha waqtiga uu leeyahay dikriga ilaahay ayadan waqti u kala hesheenba macaanidiisa iyo wanaaga uu leeyahay iyo naxariista run ahaantii qofku uu dareemaya markuu ilaahay subxaana wa tacaala uu xusayo. xusida ilaahay baana waqtiyaadan loo kala heleenba. ilaahay waxaan ka rajaynayaa in fariintaydan idin qof walba kasta ay soo gaadho uu kuwaana qaato, ilaahayna qalbigiisa run ahaantii si toosa uu ugu rido. ilaahay baan taas ka baryayaa. run ahaantii waxaan kale halkan uga faa'iideysanayaa lamaanayaasha hadda kusoo badanaya youtubada kusoo badanaya. run ahaantii waxaa tin lamaanayaal qurux badan maasha Allah runtii ku dayasho wanaagsan balse laakiin dhinacana runtii waad ka wanaagsan tihiin oo lamaanayaal isku kalsoon
waxawaaye runtii waxaweye reer qurux badan haysta baa tihiin dhinacana runtii fasahaad baad ka wadaano waxaweeye runtii intaasna shaydaan baa ku shuqul leh lamaanayaashaasna waxaan leeyahay ay u horeeyaan lamaanayaal hadda soo baxay oo runtii waxawaaye hadda social media runtii aada iyo aada ugu soo badanaya Shaadiye Sharaf iyo walaalkii Cabdifataax Yare waxaan idin leeyahay lamaana aada iyo aada qalbiyadiina markaan eegay lamaana aada iyo aada u qiimo badan baa tihiin haddii aad doonaysa inaad YouTube lahaataan si kale uga faa'iidaysta insha Allah biidnillaah hal maxaadiro aad soo dhigtaan ayaa intaasoo kun oo qof run ahaantii runtii idin daawan kartaa like idin saari kartaa iyo wixii kale la midkaaba marka hal maxaadiro kaliya xataa leef haddaad soo gelisaan waxa laga yaabaa ilaa runtii waa wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka raali yahay intaasoo milyan oo qof inay hal mar noocantii idin daawato marka waxaan idin leeyahay idinkuna iyo dadka dhammaan idin la midka lamaanayaasha oo dhan inay ka waantoobaan kana maxay tale kana toobad keenaan runtii waxa weeye aad soo xijaabataan mar haddaad soo fadhisanaysan halkaa walaalo waxaan kugula dardaarmaya gabadhaada inaad run ahaantii waxa weeye aad u hinaasto baan kugula dardaarmaya xijaabka aad farto waxa weeye waxa aad quudanaysaan iyo risqiina ay noqoto risq xalaala oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu raali ka yahay run ahaantii aad iyo aad baan idin jecelahay waxa weeye adduunka qof xuni ma jiro balse laakiin waxa weeye waxa ina xumaynaya waxa weeye shaydaan nacdal korkiisa korto oo naar loogu ballan qaaday kaas baa raba inuu biriton la yiraahdo biri baan idinka ahay Ilaahay nagama dhigo ku yiraahdo biri baan idinka ahay kuwi asaga ku qosla ee jannatul firdaws ku kulma Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hay naga yeelo aad iyo aad baan idin salaamayaa Ilaahay weyna karaameeyay ina weyneeyay run ahaantii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidoo inoo wanaajiyay runtii marka la xasuusto oo hin waxaan ahayn indhahaaga wallahi inaan run ahaantii ayna qabanaynin Ilaahay boqor weeye boqorka boqorada weeye Ilaahay subxaanahu wa ta'aala walaalayaal waxaan idin kula dardaarmaya naftayda inta aan idin iri anaa markii hore run ahaantii ay igu socotaa anaa ku raaxaysanaya kelmad kastaan dhaho anaa run ahaantii iimaankayga igu sii siyaadaya idinkana way idinku socotaa walaalayaal aad baan idin salaamay iga raali ahaada waan idin jecelahay Ilaahay dartii baan idin jecelahay waalidiintana baari ha loo noqdo waalidiinta ha la ixtiraamo waalidiinta ha la xiriiriyo run ahaantii waalidka hadduu raali ka yahay Ilaahayna raali buu ka noqonayaa insha Allah biidnillaah aad baan idin salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.